السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أو وناكسن داوديال ومركلة إيه برنامج كيني فاقداد ورركا برنامجka waxaa idinla socodsiinaya haddii Allaha awood la ogolaado anigoo ah Maxamed Saciid Cali Maxamed Turki waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki channel barnaamijkeena waxa aynu ku soo qaadan doonaa hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay isla markaasina uu ku sifeeyay dawladda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay ku tumanayso sharciga dalka sidoo kale dhaliishaasi uu dusha uga tuuray dawladda uu hogaamiyay madaxweyne Biixi ayaa waxa uu markaasi kaga hadlay arrimo fara badan isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri madaxweyne Muuse wuxuu u yaqaanaa fiicnaan iyo raganimo iyo adayg buu mala u yaqaanaa adaygu boodi jiray ay sheegan jiray ayuu yaqaanaa adaygu waa qofka ku adkaada cadawgiisa ma ka shicibkiisa ku adkaada ka shicibkiisa ku durduriya maaha adaygu waa ka cadawga ku adkaada waxa muuqata inuu ka dhigtay sharciga ku adkaada inuu sharciga ku durduriyo oo waxa weeye ku durduriyo waxa weeye shicibkii oo maxaa u dambeeyay waxa u dambeeyay xafiiskano ciidamada la dhigay oo la qabsadaa ogeydana aanu ku soo galay anagoo lugeynana soo galayo halka ilaa halka xabadu mar walba socoto bawda lagu hayay hadda xafiiskaanu ku soo soconaa hadda xafiiska ayaanu ku soo soconaa waxaan arkay nin wasiiro maalin hadlayo le 12 xabaan rido anigana booliska kun xaba igu riday oo xirsi baa watay isagii baa dambigii qiranayo 12 xabaan riday buu yiri 12 xabadood baan riday buu hadda day u fiirsada warana xabad ma aan ridin xafiiskaanu ku soo soconay rasaasna garka loo gali kuwa noocaas ah daliishan doona shalay baa la ridi jiray kana la sameyn jiray waa sharci daro waa kibir iyo adyad waa waxaan qaban waxaanu leenahay laga daayay nin Soomaaliyeed baa hore looga sheegay qab dhaafay ay laba qabiil qaran ku waaya waaryaada ta la aqbali maayo waar socon mayso meel gaari mayso waa taynu shalay diidnay yeynaan waxaan soconayn waxaan milga ahayn waxaan umada u cuntabin waxaaraano sharciga iyo waxa way aqligaba ku qaldan yeynaan ku dhaqmin waxa ogtiin saaka laga soo guureysiyo 6 subaxnimo la keenay anana waa naloo diiday inaanu maxkamadda tagno dastuurku wuxuu oranayaa maxkamaddu waa inay furaataa dastuurka hadda oranaya anigu ma samaysan maxkamaddu waa inay furaataa waa naloo diiday mas'uuliyiinta xisbiyadu inay galaan guura lagu keenay guurana waa lagu celiyay maxaa waliba horeeyay waxa uu horeeyay maanta wixii ka horeeyay maxkamad lama horgeyn waa 7 cisho oo aan maxkamad la geyn adeer sharcigu wuxuu oranayaa 24 saacadood haddaad sharciga ku tumato adeer sharci darro dalku ku socon maayee ama nin waliba de sharcigiisa tuurta ku qaato ama aynu sharciga ixtiraamno sharci baynu ku heshiinay nidaam baynu ku heshiinay waxba aynu dejisanay war wixii aynu ku heshiinay aan ixtiraamno waxaanu leenahay Somaliland waxay ku soo caanamaashay oo halkan ku soo gaadhay inay sharcigana la raaco la ilaaliyo wixii kalena waliba laga wada tashado wax badan wada tashi iyo isu tanaasul lagu gaadho haddii se madaxweyne Muuse uu yiri anigu kaligay baan gacanta kubadda ku dhalinaya wixii ka soo baxa taariikhda qori doonto anaga